assalaamu calaykum. Awoodaha dalalka tobanaan sano kahor waxay ahaayeen awood xoog ah, hard power, sida in military la isticmaalo. Laakiin waqti xaadirkan waxaa ku soo ziyaaday nooc cusub, waxaana la yiraahdaa awoodda jilcan, soft power. Soft power waa awood bulsho looga dhaadhicin karo ama lagu soo jiidan karo iyada oo aan loo isticmaalin awood ama qasab. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay awoodda jilcan, soft power, siday u shaqeyso iyo dowladaha ugu awoodda badan. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. awoodda jilcan ama soft power waxay faa'iidooyin badan u leedahay dadka, ganacsiga iyo shirkadaha dalka isticmaala. Ka faa'iideysiga togan ee awooddan waxay dal kasta u soo jiidi kartaa dalxiisayaasha, maalgashiga iyo suuqgeynta badeecadaha uu dalka soo saaro. Haddaba sidee loo cabbiraa awoodda jilcan ee uu dal leeyahay? Waxaan ka eegaynaa 3 dhinac. Kow, inta dalka uu caan ka yahay dunida oo la garanayo shirkadihiisa iyo kheyraadka dalkaas. 2, sumcadda dalka marka uu yahay dal soo jiidasho leh ahna mid ay ku daydaan dalalka kale. 3, saamaynta waa joogitaanka iyo saamaynta tooska ah uu dal ku leeyahay dalal kale. Tusaale ahaan, Maraykanku waxay kaga jiraan kaalinta koowaad dalalka ugu caansan dunida. UK waxay hogaaminaysaa taariikhda boqortooyooyinka maadaama boqortooyada Ingiriiska mar ahayd boqortooyo aan qoraxda u dhicin. Germany waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa ganacsiga iyo teknolojiyadda. Japan waxay kaalinta afraad kaga jirtaa dalalka leh awoodda jilcan iyada oo hoggaanka sare kaga jirta hoggaaminta teknolojiyadda. dalalka hadda doonaya inay helaan awoodda jilcan waxaa qasab ku ah inay diiradda saaraan xoojidda 4 tiir oo kala ah xiriirka caalamiga ah, aqoonta iyo sayniska, dowlad wanaagga iyo ganacsiga. Waxaa jira dalal badan oo mustaqbalkoodu aad u ifayo, waxaana ka mid ah Turkey oo sanadihii dambe la soo baxay awood aan caadi ahayn. ilaa intee la-eg ayay awoodda jilcan ee Turkiga u ballaaratay? markii hore dhaqanka Turkidu dibadda u dhoofiso waxay ahaayeen oo keliya macmacaanka iyo kafeega, laakiin filimada iyo musalsalada daraamaha ah ee waddankan sanadihii ugu dambeeya soo saaray si aan caadi ahayn ayaa looga daawaday daafaha dunida oo dhan. weliba duni ay ka jiraan shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara aflaamta sida Hollywood iyo Bollywood. haddana filimada iyo musalsalada Turkiga waxay dunida ka noqonayaan kuwo gaar ah haddana qaas ah. Trillis Arturul ama soo bixidda Arturul waa musalsal ama series daraama taariikhi ah oo ka hadlaya qarnigii 13aad. musalsalkan waxa uu ka hadlayaa nolosha Arturul Gazi oo ah aabbaha dhalay Cuthmaan, ka oo ahaa aasaasihii saltanadii Cusmaaniyiinta. musalsalkan ayaa noqday dareen caalami ah laga soo bilaabo markii uu bilaabmay sanadii 2014 isagoo dhex degay quluubta iyo maskaxda malaayiin qof oo ku kala nool ilaa 70 dal. tusaale ahaan, Pakistan wuxuu musalsalkan ka noqday dareen dadweyne iyo mid dhaqameedba. bil gudaheed ayaa channelka YouTube oo musalsalkan leeyahay qaybta Urdu waxa uu helay malaayiin subscribe. sidoo kalena waxaa laga soo daayay TV-ga qaranka Pakistan kadib markii uu codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha dalka Imran Khan oo taageero weyn u ah musalsalkan. su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, sidee daraamaha dalkan u noqday mid guulaystay? sidee u awoodeen inay la tartamaan shirkadaha caanka ah ee filimada soo saara ee Hollywood iyo Bollywood? dad badan ayaa aaminsan in musalsalkan buuxiyey meel weyn oo bannaanayd muddo aan yarayn kadib markii uu soo bandhigay dhaqamada runta ah ee Islaamka sida sharafka, dhaqamada wanaagsan iyo iimaanka. waxay sababtay inuu caan ka noqdo dalal badan oo Islaam ah. wuxuu burburiyey fikrado qaldan oo Islaamka laga qabay kadib weeraradii 11 Sebtembar Maraykanka lala beegsaday, taa oo ay Hollywood iyo Bollywood ka sameeyeen aflaam toos ula xiriirinaysa Islaamka. Arturul kaliya ma ahan filimada iyo musalsalada uu Turkiga soo saaro oo caan baxay. daraamaha uu Turkiga soo saaro ayaa noqday kuwo sii badanaya sanadihii la soo dhaafay. hadda Turkiga wuxuu kaalinta labaad kaga jiraa dalka ugu soo saarista badan daraamaha kadib Maraykanka, iyada oo ay daawadaan in ka badan 700 milyan oo qof oo ku nool ku dhawaad 150 dal oo daafaha dunida ku yaala. sanadii 2018 daraamaha Turkiga wuxuu dibadda ka soo xareeyay dhaqaale gaaraya $500 milyan waxaana la saadaalinayaa in dakhliga uu gaaro $1 bilyan sanado markay tahay 2023. musalsaladan kaliya kuma koobna kuwa taariikhi ah oo kaliya, sidoo kale waxaa ku jira kuwa qosol ah, kuwa jacayl ah iyo kuwa cabsi horor ah iyo kuwa khiyaali cilmi ku dhisan ah iyo nooc walba oo musalsal ah iyada oo la gelinayo lacago fara badan ayna matalayaan agtaro caan ah. waxaana laga daawadaa laga soo bilaabo Serbia ilaa Indonesia. tusaale ahaan, qaaradda Latin America musalsalka Turkiga ee 1001 habeen ayaa noqday midka loogu daawashada badan yahay waddanka Chile sanadii 2014. sidoo kale dadka Paraguay waxay bilaabeen inay u bixiyaan carruurtooda magacyo Turki ah iyaga oo ku sameynaya actriska musalsalada Turkida. awoodda jilcan ee soft power ee Turkiga waxaa ka mid ah dalxiiska oo zaa'id kor uga kacay. sanadii 2019 ee la soo dhaafay
wuxuu dalxiiska Turkiga soo xareeyay markiisii ugu horreeyay taariikhda 34.5 bilyan oo dollar. Sababaha dalxiiska dalkan badiyay waxaa ka mid ah dadka daawada musalsalaadka Turkiga lagu jilay iyaga oo raba inay soo arkaan quruxda dabiiciga ah iyo goobaha taariikhiga ah ee dalkan. caalamka maaweelada ama entertainmentiga waxaa si awood ah isaga haystay shirkado iyo dalal gaar ah, laakiin hadda ciyaaryahanno cusub ayaa soo kacay si ay u buuxiyaan meelaha bannaan una beddelaan sheekooyinkii hore ee lagu caajisay. ugu dambayn, awoodda jilcan ee Turkiga leeyahay waxay u eg tahay mid mustaqbal fiican leh. intaas ayuu ku eg yahay mawduuceena maanta. daawade, adiga fikradaadana la wadaag.